waxaan leenahay maxaa waalidka loogu samafalaya waxa loogu samafalaya baan leeyahay ilaahay loogu yeero waxa loogu samafalaya in la raali geliyo waxa loogu samafalaya in la ateeco waxa laaliyo wixii aanay ku jirin macsida ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa loogu samafalaya baan leenahay haday weynaadaan ama gaboobaan in la xanaaneeyo haday labada waalid midkood kugu gabooba ama labaduba ba ilaahay yiri waxay necbaadaan ha ku oranin hana dagaalin ba alla leeyahay war fiican oo qura ku dheh u dhimriyo u jilicsano ba alla leeyahay subhanahu wa ta'ala oo u naxariiso oo waxa tiraahdaa ilaahu labadayda waalidu naxariiso sidii iyaba markaan yaraaye taagta daraa ay soo rabeeyeen ay soo hayeen xasuusaba ilaahay leeyahay adigaba in calool lagu siday in lagu waday in xaar laga biinayay in lagu korinayay in aad oo jilicsan aan waxba qabsan karaynin lagu hayay adbata xasuuso iyaguna haday noocaan noqdaan hayba alla leeyahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay waxa loogu samafalaya in la dhowro oo la ilaaliyo in gacanta loo furo hadiyad nafaqo bil wuxuu doonayaa ha nabigu sallallahu wa sallam alayhi wuxuu tilmaamaya maxay tahadu tahabu hadiyadi sasiya nabigu waa jeclaanaysa waxba haysto oran waalidka kuma baahnay waxba haysta iyo waa kaas waa mas'ala kale waxa iska haysto iyo ku baahnaanin nabigu laakiin wuxuu ku leeyahay sallallahu wa sallam alayhi tahadu tahabu hadiyay sasiya nabigu leeyahay waa jeclaanaysa asma bint abi bakr waa taylahayd ilaahi rasuulkiisa iyo hooyaday baa timid wahiya raagibatun aw raahiba afaasiluha ma xidhiidhiyaabay ku tidhi nabiga قال نعم النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث البخاري حتى هدي كافرين بالخويلين هداني وحبا يسنوا كافرين قاليين ويقولوا النفقه ولذلك بقى ائمه الفقه وحي لي النفقه هرت كل بويلين هدي باهين حتى هدي قاليين بيلين وحين لنا والدك بحين نوغو سمفله وحين نوغو سمفلينا حتى هدي دنتان kuwa iyagu jeclaayeen ay xiriirin jireen inaynu xiriirino waxaan leenahay wax loogu samafalo waxa ugu roon waalidku intay nool yihiin in saa loo xiriiriyo haday dhintaanna kuway xiriirin jireen iyo kuwa ay jeclaayeen ba in loo xiriiriyo in loo duceeyo haday geeriyoodaan wa ku nabigu yiri sallallahu wa sallam alayhi hadithki sahih muslim ka ku yaalay إذا مات ابن الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إنسانك هدور دنتو عمل كيسو واحد ما يكتاب كيسو صدح مويان صدقة جارية أو كتغي علم لا انتفاع سدو كتغي أو ولد صالح يدعو له بنبوه أما المفي عنه كتغي أو أسو دعية